waxaan leeyahay walaalaha inta badan ka hadla baraha bulshada ee runtii propagandaha faafiya ee sheega waxaan jirin walaalayaal idinku dhibaato u soo jeedina dadka dhibaataysan ee dhaawacmay ee dhaawacooda la tacaalay waxa jira dad dhakhaatiira oo runtii de sharfan oo shaqeynaya waxa kale oo jira dad bahda caafimaadka oo intay guri hoosta ka xidhaan facebookyada been iyo propaganda ka sheegaya taana waxaan leeyahay haddii aanad waxba tari karin walaalka oo dhaawacan oo aan inta goobta tagto shaqeyn karin walaal beenta ka daa hana ma jara hawaamin umada gobolka awdal gaar ahaan magaalada madaxda xaaladaha ka dhacay inaan marnaba dhicin wax sablaya oo go'ay way jiraan propaganda iyo hadal isla dhex marayo wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo waajibaadkeeda gudanaysa waajibka lagu lahaa xaq ay u lahaayeen dadka shacab weynaha Soomaaliland gaar ahaan shacabka mudaharaaday iyo shacabka dhaawacyada soo gaadheen inay gaarsiisay sablaygii loogu baahnaa ilaa iminkan ay diyaar u tahay inaanay marnaba ka seexan inagu ammaan ma rabno waxaan u baahanahay inaynu ummadeena badbaadino taasaa mas'uuliyadeena taasaa ethicska caafimaadku ina faraya anigu ku hadlaya wasaaradda horumarinta caafimaadka ahna agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonayaa halkan inaan idin la wadaago xaalada caafimaad iyo xogaha caafimaad ee gobolka awdal guud ahaan ee xaaladaha mudaharaadada ay ka dhaceen iyo magaalada Boorama caasimadda gobolka awdal oo runtii isbitaalka weyn iyo dhammaan adeeg bixiyaasha gaarka loo leeyahay dhamaantood inta ka hor waxaan doonayaa in halkan ka taxsiidiyo dhammaan intii ku nafweyday mudaharaadada waxaan leeyahay ilaahay jannada ha idin geeyo ehelka iyo asxaabta iyo qaraabada iyo guud ahaan Soomaaliland waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiq ilaahay ha inaga siiyo inta dhaawaca ilaahay waxaan ka baryayaa inuu bogadhayo guud ahaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo taasi ka bacdi waxaan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo bahda caafimaadka ee guud ahaan gobolka awdal gaar ahaan magaalada Boorama haday noqoto shaqaalaha weynaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee goobaha kala duwan ee ugu horeeya isbitaalka guud ee Hargeysa iyo isduuha gobolka agaasimaha isbitaalka sidoo kale waxaan doonayaa inaan mahad celiyo isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala caasimadda gobolka awdal ee magaalada madaxda Boorama oo runtii dadaal badan iyo nafaqnimo badan muujiyay ilaahay waxaan uga rajaynayaa shaqada culus ay hayaan inuu ilaahay u fududeeyo xaaladan oo kale waa xaaladii gacmaha la soo qabsan jiray ujeedadeenu waxa weeyaan marka caafimaadka laga hadlayo ethicska caafimaadka iyo akhlaaqiyadka caafimaadkuna inaan baray inaynu ka jawaabno xaaladahan oo kale culayska waan la dareemeynaa guud ahaan anigu aan kala qaadayn bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale isbitaalada gaarka loo leeyahay shaqo badan qabtay waxaan doonayaa mahad celin ka bacdi wasaaradda horumarinta caafimaadku sida uu dhigayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay mas'uul ka tahay caafimaadka waddanka xaalad kasta oo timaadana waxay diyaar u tahay inay runtii ka jawaabto waxaan halkan aan doonayaa inaan ka sheego gobolka awdal gaar ahaan magaalada madaxda xaaladaha ka dhacay inaan marnaba dhicin wax sablaya oo go'ay way jiraan propaganda iyo hadal isla dhex marayo wasaaradda caafimaadku iyadoo ka duuleysa dhibaatada ay rabshadu markay bilaabeen waxay awood haysay sablaya waxay gaarsiisay isbitaalka Boorama markii horena isagoo yaalay sablay ku filan waxyaabaha sida dhowgooda soconay waxa kamid ah xaalad kasta oo soo kordha madaxda isbitaalada kala duwan iyo isbitaalada dawliga labadaba waxaan lahayn team isku xiran waxaan sidoo kale abuurnay si aan xaalad dhaba u helo in wada shaqeyn buuxda la sameeyo oo ay gacan ma isqabsadaan bahda caafimaadka guud ahaan iyagoo ka duuleynaa inay taasi dhibaato kale aanay dhicin lana badbaadiyo bukaanada waxaan doonayaa in halka ku cadeeyo wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo waajibaadkeeda gudanaysa waajibka lagu lahaa xaq ay u lahaayeen dadka shacab weynaha Soomaaliland gaar ahaan shacabka mudaharaaday iyo shacabka dhaawacyada soo gaadheen inay gaarsiisay sablaygii loogu baahnaa ilaa iminkan ay diyaar u tahay inaanay marnaba ka seexan culayska ugu weynna uu haysto wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ah culays mas'uuliyadeed si ay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga qaboojiyaan ilaahay ka codsanaynaa ka baryaynaa xaaladda taagan waa xaalad anaga wasaarad ahaan ama caafimaadka de saameyn ku leh runtii waanu dareemayno ma oranayo waxaanu gaarsiinay laakiin waxaan runtii oo waajib ay nagu tahay laakiin aan marnaba sablay ka go'in oo sablaygu sidiisii yahay wixii ay u baahnaayeen haday noqoto trauma kitski
iyo chest tubeskii laparoscopygii iyo first aidkii oo materialkii first aidka oo dhanna iyo fluidskii emergencyga loogu talagalay ay runtii gaadheen ilaa imikana aan wadno ka shaqeynayna u socdaan. xaaladuhu markay dhacaan xaaladani waa laba xaalad. waa xaalad life saving ah, xaaladna waa xaalad marka qofka la establish gareeyo triage laga saaro xaaladiisa wax laga qaban karo. xaaladaha life saving ka imika gacanta ku haysa bahda caafimaadka guud ahaan taasayna ka jawaabaysaa. runtii ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu nala qabto priority-ga number marka maxaa la yiraahdaa awooddeena waxaan saaraynaa xaaladda emergency aan ka jawaabno si xaaladda marka life saving ka wax alla wixii life saving u baahnaa wasaaradda caafimaadka way geysay. waxaan uga mahadnaqaynaa shaqaale weynaha wasaaradda caafimaadka guud ahaan Somaliland haddii Hargeysa joogaan iyo haddii Boorama joogaan iyo haddii Gabiley joogaanba sidii heeganka ugu yihiin ee u diyaar garoobeen inta joogtana insha Allah bidnillaahi kariim in ay la shaqeeyaan. waad ogtihiin oo meelaha qaar wadooyinku way goonaayeen duruufaha keenaya inaan la wada gaadhin. waxaan rajaynayaa shaqaalaha faraya si aad ugu dhabar adeegtaan inaad igu dhabar adeegtaan oo ummaddiina ugu shaqeysaan oo ugu adeegtaan. inagu ammaan ma rabno, waxaan u baahannahay inaynu ummaddeena badbaadino. taasaa mas'uuliyaddeena, taasaa ethicska caafimaadku ina faraya, taasaynu u nahay. waxaan leeyahay walaalaha inta badan ka hadla baraha bulshada ee runtii propagandaha faafiya ee sheega waxaan jirin, walaalayaal idinku dhibaato u soo jeedina dadka dhibaataysan ee dhaawacmay ee dhaawacooda la tacaalayo. waa dhibaatada koowaad ee ha ka been sheegina. waa dhibaatada labaad ee halka loogu adeegayo loogu shaqeynayo marka bukaanka la keeno si awood loogu helo in loo shaqeeyo u baneeyo oo u furo isbiishada loogu shaqeyn lahaa oo u daaya bahda caafimaadku. bahda caafimaadku inta badan siyaasad ma gasho. bahda caafimaadku waxay isku daydaa inay naf badbaadiso. sidaa daraadeed caafimaadku ma laha propaganda. taana waxaan uga digayaa dhammaan cidda ku hawlan inay farageliso. waxaa jira dad dhakhaatiir ah oo runtii dee sharfan oo shaqeynaya. waxaa kaloo jira dad bahda caafimaadka oo intay guri hoosta ka xidhaan facebookyada been iyo propaganda ka sheegaya. taana waxaan leeyahay haddii aanad waxba tari karin walaalka oo dhaawacan oo aan intaad goobta tagto u shaqeyn karin walaal beenta ka daa hana ma jara hawaabin ummadda. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ummadda. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xaaladda inaga qaboojiyo, xaaladdaana kusoo dabaalo nabadgelyo. culayska ugu badan ee kulley bahda caafimaadku haystaa insha Allah bidnillaahi kariim kana waynu ka baxaynaa. wax laynoo tababaray. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu intaa inaga hakiyo bahda caafimaadka mar labaad iyo mar saddexaad. waan mahadcelinayaa. waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda caafimaadka gobolka Awdal gaar ahaan degmada caasimadda Boorama. iyo waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa isbitaalada gaarka loo leeyahay. waxaan leeyahay maanta kale waa markii la wadaagi jiray resource-ka waxay wasaaraddu diyaar u tahay isbitaalka weyn diyaar u yahay. agaasimaha iyo istuuhuna ay ku amran yihiin inay wixii idinka go'an marba ay idinla wadaagaan idin soo gaarsiiyaan. waxaan leeyahay dadweynahana ambulaansiyada iyo bahda caafimaadka waa in wadooyinka loo furaa. waa in runtii la tixgeliyaa caafimaadku si aynu u badbaadino naf oo aan naf inooga bixin. aad iyo aad waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa shaqaale weynaha caafimaadka gobolka Awdal gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha ka shaqeynaya xaaladan mudaharaadka runtii mudaharaadada ka dhalatay. waxaan runtii u mahadcelinayaa si gaar ah isbitaalka gobolka Boorama shaqaale weynihiisa kala duwan ishiduwaha gobolka iyo agaasimaha oo runtii si wanaagsan oo nafarnimo leh ugu adeegay ummadooda. shaqaale weynaha oo ilaa xalay ilaa habeen hore u soo jeeday inay badbaadiyaan nafahooda. sidoo kale waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa isbitaalada gaarka loo leeyahay oo runtii shaqo fiican qabtay oo ku amaanan. isbitaalada gaarka loo leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin. si dhowna insha Allah waanu idinla shaqeyn doonaa. waxaan diyaar u nahay ka wasaarad ahaan in xaaladan oo kale gacmaha la isu qabsado oo aanay noqon xaaladii lagu kala tagay. wixii isbitaalada ka go'a private-ka waxaan diyaar u nahay inaanu wixii aan ka caawin karna ka caawino. aad waa mahadsantihiin.